cabduqaadir abuukar axmed oo looga dhigay garasho magacyada kale ah nasrudiin iyo saabir wuxuu al-shabaab soo ahaa ilaa 2017 xilligaasi uu jannaale kaga biiray khawaarijta sida uu u xajmi yar yahay waxa uu dheeraa inuu ahaa dilaa aan xitaa u baahnayn caawiye waana kan markii uu dilay salaadii jimcaha kadib injineer ganacsade iyo samafale isxaaq aadan cali isxaaq agoosto 11 sanadii tagtay 2023 kuna dila marxuumka gurigu ka deganaa hodan mid kalabaad uu sheegay waa ganacsadihii lagu dilay taleex ganacsada ina badhaamiyaro ganacsadihii taleex lagu dilay ganacsadii weynaa ahaa ee la wada yaqiino waay ganacsada aan sheegay eedeysanaha goorma la qabtay waxaan rabaa inaan sharaxo eedeysanaha waxa la qabtay isagoo faragalansa oo dilkii ganacsadihii markuu dilay isagoo baxsad ah askartii qabataana joogto eedeysanaha oo isku dayay inuu isaga reebo bam F1 ah iyo bistoolad ciidanka ilaala qaran ay ugu dambeyn goosteen inay naafeeyaan waana goobtaas soo afjaridda silsiladiisii argagixisanimo anoo kilometer 4 ka imaade emergency waxa ku arkay xabada ku maqlay marka meeshii maana waxa ku arkay meedka marka cunuga ku qiyaasay da'diisa 10 ilaa 12 jir oo wuxuu igu yiri aabeygu dil waa kaasa istaaga ku marka istaagirna wuxuu isku day inuu fakto woorde marka ordo waa dabaracna anagoo bursanayno baalooto nagu soo riday anagoo iska caawinayna xabadu soo riday sidoo ku dhaawacmay xirada keenay saraakiisha ku wareejinay saraakiishana wuxuu ku wareejisay hay'adda nis markaas wuxuu wutay biskoolad iyo bam canuuniga sida loo yaqaan markaas ay ugu horeysay aniga asiga 3 cisho uun ka hor waxa uu dilay isla xilligaasi allaha u naxariistay nabadoon salaad cali aadan wiid dilka ayaa ka dhacay deynile gaar ahaan waxda halgan waxaana telefoonka marxuumka uu isku dayay inuu loo ka bixiyo ee dhalisay in Google Drive-ka Gmail ku xiran uu keediyay sawirkiisa waana taas caddaynta keedka ah ee galkiisa dilalka ku korortay eedeysanaha labaad maxamed ibraahim amiin oo ahaa macallim dugsi ayaa ballamiyay nabadoonka waxaana loo haystaa inuu ahaa shirqoole sahlay dilka nabadoonka oo caruur uu isaga mas'uul ka yahay ay dhiganayeen dugsi uu macallim ka yahay eedeysanaha labaad Juulaay 3 isla sanadkii tagay ayuu sabab u noqday geerida maxamed aadan isxaaq oo ciidamada xoogga dalka ka tirsanaa labadaas ay sawirka arkan kadibna cadeeyeen inuu ka tirsan yahay amniyaadka markii horena lama amni wuxuu ku sheegay inuu oo san shabaab ka tirsanaan oo qof ganacsada uu soo dirsaday lacag uu ku qaatay $1,000 balse waxa ka shafay oo banaanka soo dhigay sirtiisa labada isu soo dhiibay ayaa banaanka keeneen oo aqoon u leh oo isku tabar ahaayeen mudane shabaab ka tirsanaayeen والله بالكور نقدون كتاني اللي بدين أيون دل كسر الجستة سنة واحد يقصد بعد إنك ترسين كواحد الشباب إنك ترسين كواحد الشباب يقصد بعد سو كان هذا سنة لبعض محمد معلم إبراهيم أو عي مرحوم نقدون إكس صلاة علي آدم والله ها بلانك وبلمية دكسي ونكو بلمية بلانك دكسي كان وببحي وكو عندنا يوم جل خراع يتكان وحكسوا يبسناي أصيغ أيام كو بلمية بلانك وكو بلمية كدمنا دكسي أيام الورد لي نودونك دكسي أيو جلي جودي أيو صوابي صباح أيانا وحل الدلي ملح على أول افتح بدي وحنا كو بلمية دكسي هذا سنة لا ولا كو بلمية بلانك كان أصلها أصانا وعي ماشي كو بلمية دكسي كو بلمية بلانك ما هو بحي وحنا وصل بحي إنه دل كاسي ونودونك وكل اللي هاي أصيغنا وكو بلمية دكسي وانا كشر قولي waxaa soo baxay in loo beelasamaasha shabaab ka tirsan qatarniin amnigan ay qatarkiin shacabka Soomaaliyeed ee dilalka Muqdisho ay ka geystaan eedeysanaha oo soo ahaa jabhad ku bartay gowraca marxuumiinta argagixisada ku baxay gacmahooda ayaa ka soo muuqday fadhigan waa kan Axmed Iimaan Maxamed ku-xigeenka xeelaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida oo uga horeeyay garsoorka sooyaalka xun ee Cabduqaadir Abuukar Axmed taariikhdu markay ahayd 3 bisha 7 2023 مرحوم دبل حوجة محمد آدم إساق وحو كتر سناي عيدن كحوجة دلك الصوماليات وحو كتر سناي عيدن ك ليرادو بوليس ميليتاريو وحو كجري فصح أيو وحو كدي لي تاريخ مركز 3 بيش التضوات لو كون 3 دقمة كرسبالي أما ديجان كرسبالي وحو كلا سنها عبدالقادر أبوكر أحمد ودلي مرحوم نبضان صلاة علي آدم أو نبضان صوماليات
da'diisana ay qof da' weyn ah wuxuu ku hordilay gabar yar uu awoo u yahay una waday dugsiga taariikhdu markay ahayd 8 bisha 8aad 2023 taas oo markuu dilay kadib lagu ogaaday sawir mobilka uu ka qaatay kadib mobilka intuu sawir ka qaaday gmailka familka ama ehelka ugu diray wuxuu kala hadana Cabdiqaadir eedeysanaha Cabdiqaadir uu dilay marxuun Isaaq Aadan Cali oo ah muwaadin Soomaaliyeed ganacsate samafala ahaa wadanka ama magaalada Muqdisho dhismayaal fara badan ka dhisay wuxuu dilay taariikhdu markay ahayd 11 bisha 8aad 2023 maalin Jimco ah wuxuu ku dilay degmada Hodan taas oo ahayd maalin uu ka soo baxay Jimcada waqtiga salaada duhur isaga oo ku sugayay masaajidka hortiisa waxa la socday eedeysanaal kale oo maqanayaal ah meesha ay ku dileen isla markii goobta ay ku dileen waxa la kowsaday ama markiiba qabtay ciidan ka tirsan ciidanka dawladda oo loo yaqaan ilaalo qaran meesha ay ku qabteen isku dayay inuu iska caabiyo xabad ay ku riday iyagana meesha ay ka dhaawaceen lugtii ay ka dhaawaceen sidaas ay isbitaal lagu geeyay arintaas baaris dheer kadib waxa maadaama uu qiraal yahay maadaama aan horkeena marqaatiyaal sheegayo inay soo qabteen ninkan uu yahay ninka dambiga galay si waafaqsan 184 xeerka habka iqaabta Soomaaliyeed oo sheegay inay arkeen kuna raadjoogeen dhaawac isbitaal u geeyeen maadaama aan horkeenay bistooladii uu dadku ku dili jiray ku gumaadi jiray dhibka uu ku geeni jiray iyo bamba laga soo qabtay maadaama aan keenay sawirkii ama uu qaaday mobilkii nabadoonka maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa in lagu xukumo dil toogasho oo ah marxuuminta uu dilay eedeysanaha labaadna waa maadaama oo la yiraahdo Maxamed Ibrahim Amiin oo ku magac dheer Macal Maxamed wuxuu u bareeray inuu la shaqeeyo al-shabaab oo waca nabadoonka wuxuu sameyn karay inuu yiraahdo ama isoo tuur lacagta ama gabadha waalidka dhala ayaa jooga oo ka yaraay odayga wuxuu u wacday ujeeday ahayd hadafku ka lahay isla markaa xataa waqtigaas ma joogin dugsiga uu ku ballaminayo sidaas ayaana lagu dilay ujeedana waxay ahayd inuu shir qoolo isagana waxaa maxkamadda ka codsanaa qodobada aan ku soo eedeynay in lagu xukumo maxkamadda wansanta qareenka uu doodayay eedeysanayaasha ayaa isna codsaday in loo naxariisto labadaba laakiin waxaa lagu daray waxaa la yidhi macalinka wuxuu yidhi imaaw dugsiga imaaw ayaa xafiiska xeer ilaalinta iyo baaraha ay sheegeen taasna waa been sidii muwakkilkayga uu ii sheegay wacitaanka macalinka la wacay xiriir iska dhaxeeyay ardaydii iyo bishii wax lu kala qaadanayay inuu nabadoonkii awow ahaa oo gabadha awow u ahaa inuu wacay oo biilkaas yar iska rabay lacagtaas qarashkaas yar si isku heli lahayd darteeda isu wacday waa sax muwakkilkay waa qirsan yahay laakiin imaaw dugsiga imaaw wax kama jiro ficil ahaan uma qaadanin mana hayo xafiiskii iyo baarihii kiiskoo 8 bilood gacanta ku hayine maanta ma keenin wax maxkamadda sidaas darteed maadaama intaas oo dhan wax cadeen ah oo loo keenay aysan jirin maxkamadda sharafta leh waxa ka codsanayaa inuu Macalin Maxamed Ibrahim Amiin cadaalad uu helo xoriyadiisa la siiyo sidii caafimaad iyo daawo dhakhtar loo geey lahay maxkamadda sharafta leh waa mahadsantahay isaga markaan weydiiyay dilkaas koowaad iyo labaad iyo saddexda qof oo lagu eedeynayo wuxuu sheegay mid ka mid ah ma dilin buu yiri sidoo asagu sheegayo maadaama asagu qiraal uu soo ahayn markhaatiyaal dheeraad ah oo maxkamadda horteeda la keenana aysan jirinin waxaa maxkamadda sharafta la ka codsanayaa doodiisa mayada inuu tixgeliso maadaama caddayn ku filan oo 14 waadaxa 168 si waafaqsan xafiiska xeerlaanta uu caddaynin waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa inay u tixgeliso mayadiisa inay u tixgeliso maxkamaddu waa maasanta gaashaala sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhigan maxkamadeed Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho.